socotaan waa TRTV isaguna madaxweynaha Soomaaliland ayaa saaka qaboonadii intii gelin ka hor ahayd u qarboosiyay sidan iyo dalka Djibouti waxa la arkayay isaga oo goor harsoo korkii ka degay gegida diyaaraduhu ta kala dhabtaan Djibouti goortu halka gaaray waxa Muuse Biixi ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti Cabdiqaadir Kaamil Maxamed kaas oo ka xeeyay cabuudha madaxtooyada dalka Djibouti wafdiga madaxweyne Biixi ayaan la ogeyn waxa uu daaran yahay ama salka ku haya socdaalkan watigiska ay fooda ku galayeen jamhuuriyadda Djibouti marka laga reebo warar la isla dhaxmarayo oo sheegaya inuu huluulan doono shirka halkaasi uga socdo Soomaalida ee magaciisa lagu sheegay Heritage ka gadaal markuu wax ka halqafo waxoogayga gabaatiga ah ee laga dhiibi doono haybada Ismaaciil Cumar Geelle oo uu soo doonay hebelkay Saadiq John dhinaca kale warar hulubsanaya ayaa sheegay in Djibouti isku arki doonaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ka wada jalbeeban doonaan dib u soo noolaynta wada hadaladii Hargeysa iyo Muqdisho oo Turkigu dabada ka turbaarinayo haddaba shirka Soomaalida halkii guba loo qabtay ee la yiri Heritage oo aan garanayn waxay tahay ayay dadka Soomaalidu ku qaada dhigayeen baraha la istocsado waxay ku sifeeyeen inaanu shirkaasi ahayn mid Soomaaliyeed iyo mid Afrikaan iyo mid Islaameed waxay sheegeen inaanu lahayn sawir Soomaaliyeed oo aanu lahayn dhaqan bartire oo aanu lahayn dhaqan yabare oo aanu lahayn dhaqan baalcade oo aanu xataa lahayn mid jidwaaq iyagoo dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed hiifaya oo haaraamaya shirkan Heritage waxay sheegeen in aan lagaga hadlin oo lagaga dibinjaaqin af ajuuraan af baajuuneed mid giirgiireed mid garre iyo waliba afkii ay ku hadli jireen Soomaalidu gaar ahaan Curdudub Cawra Mare Geledi Gahayle Muuse Case Gurux Dhogorey Bahmajeero Idarays wandogor weyn shalaanu degnay odayo qoyan jeena nooyaal wabeenaye amarti waaq iyo umad nabi tiyo meesha lagaga dhurmaayay afka Faransi iyo afka gaalaad ee aynan abiyeysarka midna u lahayn warkeena labaanteenu gudbi doona daawada waxaan idinkaga tagaynaa inta waranay waxaan ku darnay ma ogin wax weydiin ogaal ka sheegnay waa Maxamed Aadan Diirtan iyo kulanti daba nabadgelyo iyo nooli kulante hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland